meel aan la gelinayn oo qarjajeexan marinayna dalka sababtoo ah meeshaasay ku jirtaa saxnimadu meeshaasay ku jirtaa dhulka dawladda oo la yidhaahdo anaa leh oo caadi noqoto oo dadku ay ku doodaan oo dadkii aqoonta lahaa kuwii mas-uuliyiinta ahaa ay caadi u noqoto dhulka aniga aan deganahay oy dawladu leedahay maalinta la yidhahdo war dawladdii baa le uga bax inay noqoto ceeb dadku waxay ku dhahayaan dawladda dalka waxaad u wadaan meelaan la garanayn meelaan la aqoonin oo haddaanba meeshii la garanaya baan geynaynaa meesha la garanaya tay ahayd sawtii ma ah meel aan la garanaynin buu khayrku ku jiraa meesha aad garanaysaan waa meeshii aad ku soo jabteen waa meeshaad ku soo rogmateen meel aydaan aqoonin baa laydin kaxaynaya meeshaas way meeshu khayrku ku jiraa marka dadku waa inay ogaadaan caqli ma aha in dee aan qubuuro kor fadhino inaan dhahno wax aan la garanaynin baan waardiyeysanaynaa waxa ila yaabka badaneen maqlo wey mar kasta dalka meel aan la garanaynin baa loo wadaa haddaa meeshaad garanaysa xagee waa xagee dib ulaa meeshaad taqiina waate se waxaan isla ogeyn maaha ma meel qabow baan ka nimid ma meel dal lagu celiyaan ka nimid ma meel dad waaweyneyd ummad reer geedi ay dejiyaan baan ka nimid ma meel lagu noqdaan ka nimid meel aan la gelinayn oo qarjajeexan marinayna dalka sababtoo ah meeshaasay ku jirtaa saxnimadu meeshaasay ku jirtaa meeshaas saxnimadu ku jirtaa isbeddel baan u baahannahay haddii aynaan isbeddelin sidanaan ku jiraynaa maxaa jira weligee waa naqaanaaba dee fiistigiska waa wada taqaanaan dee haddaad dariiqadii un marta natiijo unbaa ku imanaysa soo maha natiijadii marka dadku maxay rabaan natiijadii war hana dhaafinin marka dambe caqliga bani aadamku mararka qaarkood wuu fooraraa maskaxdu way foorarsaa mararka qaarkood oo markuu ilaahay ummadaha rogayo marka hore caqligu ka dilaa waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutra fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqawlu fadamarnaaha tadmiiran markaan rabno inaan horta ummad ilaahay u marmarsanayo way dembiye galaan marka hore caqligu ka dilayaa koox wuxuu ilaahay u soo bixinayaa xoolo ah oo aan waxba garan oo deedna waxay rabaan iska sameeya oo qooqa oo kibra oo waxay rabaan sameeya kadib markaasu markay deedna ileen ilaahay ilaa ay dadku dembi galaan iskama halaagee kadib markaasay wixii dhex galaan oy dabaashaan oo wax alla wixii ilaahay ugu nicmeeyey kufri u bedelaan kadib markaasuu ilaahay burburiyaa marka oo ilaahay soo aada marka waxaynu u baahannahay inaynu towbad keenno dhibaata ayna haysataa towbadkeenkuna waxa waaye waxa aan ku halaagsanay inaan kas noqonay laakiin war wixii iida wixii baan rabaa wixii aan ku halaagsanay baan rabaa meeshii imari war meeshaas micna ma laha dawladnimada oo la diido oo laga soo horjeesto dhulka dawladda oo la yidhaahdo anaa leh oo caadi noqoto oo dadku ay ku doodaan oo dadkii aqoonta lahaa kuwii mas-uuliyiinta ahaa ay caadi u noqoto dhulka aniga aan deganahay oy dawladu leedahay maalinta la yidhahdo war dawladdii baa le uga bax inay noqoto ceeb dadka maxaa laga rabaa maxay degan yihiin miyuuna caqligaasi foorarin caqligaas kii caadiga haba kii caadigaha ma aha maxkamadaha innagaa samaysanay dawlad baan nahay maxkamadaan samaysanay calan baan ka dhignay dadkoo dhan oo fiirsadaan dhahnay go'aanay gaadhaan dhul dad isdilay dad wax sameeyey go'aankii markii la gaadho wallaahi lama fulin karo reer hebel baan nahay maxay tahay waxaas ma caqli baa kaas ma kii saxdahabaa kii saxdaha ma aha kii saxdaha ma aha ilaahay markuu ummadaha halaagayo mararka qaarkood fajacalnaa caaliyaha saafilaha soo ilaahay ma dhihin mararka qaarkood lugaheenu kor bay u taagan yihiin caqligeenuna hoos buu socdaa dadka soomaaliyeed waxa in layska dayaa loo baahan yahay aniga dadka waan u sheegaa macallin baan ahay siyaasaddu bannaankaasaan uga imaada waxaan rabaa dadkayga markaan la hadlaayo inaan si dhab ugula hadlo dawlad diidnimada aan iska dhaafno nidaam diidnimada aan iska dhaafno caqliga baxsan ee lugaha ku soconno
madaxiina lugaha madaxaan ku socono lugihiina kor jiraan aan isku kala wareejino aan caadi aan sidaan caadiga u istaagno laqad khalaqnal insaana fi ahsani taqwiim sidii ilaahay ugu talagalay aan ku socono ku istaagno waree hebel iyo soo inagii shalay iyo 30 sano ku soo jirnay ma xageena geesi waxaan u baahanahay inaan aqli sameynana u baahanahay walaalayaal buunda la dhiso airport la dhiso jid la dhiso intuba way fiican yihiin waana horumarka dhaqaalaha laakiin waxa intaas oo dhan ka muhiimsan in la maalgeliyo la dhiso caqliga kartida iyo karaanka bani aadamka ayaa ka fiican maxaa jira markaad bani aadamka noocaas hesho asaga dhisanayo